waxaa la rabaa marka guusha waa la hayaa waa la adkeeyaa Soomaa hadaa intaad guul gaadhid lagaaga daba yimaado guushi waxa ma noqonayso waa aragteen hadda godadkaas nimanka ku samreeyay usbuuc dhan idinkana hadda galaan iriyo waxa la waa la gali doonaa xoog si fiican baa loo gali doonaa intaas oo dhibaad maraysaan inaad ka guuleysateen cadawga godadkaas aan aragnay ku jira runtii waxay na tusinaysaa dadaalkiina iyo ka go'naanshihiina iyo geesinimadkiina waxaa la rabaa marka hadduu alla yidhaaho in ka badanna aan ku sii talagalno waayo dalka iyo dadku waxay sugayaan waa idinka waxa la rabo nimankaas kolba meel god ka qodanaya ee hadda raba inay godadkaas iyo guryaha dadka ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed guryahooda intay god ka qotaan la burburiyo oo halka ku burburaan cidda kaliya hadda wax ka qaban karto waa idinka marka waxaan rabnaa hadduu alla yidhaaho waxaan idinku imaaday waa inaan guusha aad gaadheen idinku mahad celiyo intay inaga shiideen ilaahay u naxariisto inta dhaawacana ilaahay noo caafiyo waxaa la rabaa marka guusha waa la hayaa waa la adkeeyaa Soomaa hadaa intaad guul gaadhid lagaaga daba yimaado guushi waxa ma noqonayso waxaan rabnaa hadduu alla yidhaaho meesha aad qabateen iyo halka aad joogtaan in horey looga socdo oo 10 kilomitir 20 kilomitir ka socotaan mooye cidda halkan ku haraysa waa inay shaqadaas qabato inaysan dib u noqon inaysan dhicin in la yiraahdo wabiga xagga ka maray iyo saasay noqotay ninka ragga cadawgu uguma yimaado meeshuu degan yahay isaga cadawga meeshiisa ugu taga askariga xoogga dalka Soomaaliyeed waxa laga rabaa meeshuu cadawgu joogo inuu cadawgu uga baqay inuu isaga uu cadawgu meeshuu ugu imaanayo uu ka fikira ma ah marka waxaan rabnaa in roondada la badiyo la socdo la wareego fursad ba aan loo siin nimankaas inay ku soo hamiyaan inay meel kale ay tagaan hadduu alla yiraahdo aadna waa idinka mahad celinaya runtii shaqadaad qabateen wax kale oo idin dhahayo ma jiro cali baan taliyaha guutadan aan la dardaarmay kulli xoolo qalna waa la idin sameyn waa la idinka warhayn hadduu alla yiraaho wixii shaqo iyo wixii waajibaad oo dhimanna idinka sii dhamaysan doona waxaan idinku imaaday kaliya waa mahadnaqas inaan idin mahad celiyo guul weyn baad gaadheen runtii marka waxaan rabnaa hadduu alla yiraaho sida hadda u guuleysateen mar walba in loo guuleysto guushana waa in lagu fikiro si ay guul u imaato marka hore qofku markuu ku fikiro inuu guul keeno ka go'an tahay yuu ku dhaqaaqaa waa aragteen hadda godadkaas nimanka ku samreeyay usbuuc dhan idinkana hadda galaan iriyo waxa la waa la gali doonaa xoog si fiican baa loo gali doonaa nimanna waxay ku jireen usbuucyo dhan Soomaa waxa laga yaabaa walaaladeen inay ku jiraan kuwaas iyaga DNA-geenu ma kala duwano dhiigeenu ma kala duwano muslim baan nahay aqeedo gaar ah oo kala haysan ma jiro kuwa khawaarijta mooyaane waxa noocaas marka waxa keenaya waa ciidanimadka halkaas fadhi ama ha kululaato ama ha qaboobato ama janno ha noqoto ama cadaab waa inuu amarka qaataa waajibka uu qaataa in yar kadibna guusha waad gaaraysaa laakiin haddaad tiraahid mar walba meeshan lama socon karo lama mari karo meeshan way dheer tahay habeen lama socon karo waqtigan sidan ma aha sideedaba ciidanimo ma aha waxaa la rabaa marka si aad cadawgaaga uga faa'iideysatid waa in la kadiyo Soomaa xilli uuna filaynin la aado meel uuna ka filaynin looga tago waa in qorshe ka bedelan la sameeyo marka waxaan rabaa hadduu alla yiraahdo inaad dadaashaan shaqada aad haysayna sii laba jibaartaan cadawguna waa jabay inta hadhay insha Allah insa sii raacino sida aad ku tala gashaan cibaadada ilaahayna ku dadaal xabad baad ku jirtaan dagaal baad ku jirtaan habeen iyo maalin ilaahay wax fiican in la hortaga asal ah wax fiican oo shaqo fiican waan haynaa dadkii iyo dalkii diinta difaacayna laakiin ilaahay xiriirkiisana waa inaan toosino salaadii u horeysay nin walba ku tala gal salaadaada iyo cibaadadaada inaad hagaajisatid guushana mar walba waad helaysaa mar allaaliya markaan ilaahay u dhawaano guusha waad helaynaa haddaan ilaahay ka fogaanana dee guul daraan gelaynaa marka waxaan idinkula dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeed nimankaas mujrimiinta ee khawaarijta dhibaatada ay ku hayaan cid kale oo inaga saaraysa oo alla uuntay ma jirto waxaan idinka ka ahayn waxaa la rabaa marka idinku inaad isu xil saartaan arrinta waajibka qaadataan horeyna waa idinkala hadlay shaqayaysa idinka noqon caqiidaha idinka noqoto
si ganacsigaagu u noqdo mid guuleysta ama ka sara mara ganacsiyada kale ee la midka ah. Waxa uu u baahan yahay suuqgeyn ama xayeysiin casri ah oo ku habboon. Ma doonaysaa inaan kuu sameyno xayeysiin casri ah isla markaana qiimo jaban? Ma rabtaa inaad hesho macaamiil badan? Haddaba anaga ayaa kaala shaqeyn doono sameynta xayeysiimo casri ah iyo kor u qaadida horumarka ganacsigaaga. Waa xalka ugu wanaagsan ee kobaca ganacsigaaga. Ogeysiis, ma jeceshahay inaad noqoto muuqaal sameeye? Ma rabtaa inaad ku edit garayso ama aad ku hagaajiso muuqaalada adigoo isticmaalaya moobilkaada gacanta? Umana baahnid kombiyuutar oo telefoonkaada ayaad ku samayn doontaa muuqaal walba oo aad doonaysid. Muuqaal samaynta ama video editing-ka waxa uu noqday mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee uu qofku u baran karo xilligan la joogo. Marka laga yimaado baahida weyn ee shirkadaha, TV-yada iyo dhammaan ganacsiyada noocyadooda kala duwan u qabaan, helista qof si fiican u yaqaana xirfadan si uu u hagaajiyo muuqaaladooda. Haddaba kooraskan waxaad ku baran doontaa samaynta muuqaalada. Ha ahaato inaad muuqaalada ku dari karto transitions, sound effects, animations aad u qurux badan iyo dhammaan wax walbood uga baahan tahay inaad muuqaal samayso. Dhammaadka koorsadan waxaynu ku qaadan doonaa muuqaal kaasoo min bilow ilaa iyo dhammaad wada samayn doono. Haddii aad dhamayso koorsadan waxaad awood u yeelan doontaan samaynta nooc walba oo muuqaala. Maanta bedel noloshaada oo xirfad cusub baro. Si aad iskaga diiwaangeliso koorsada, riix buttonka hoose ee WhatsApp-ka. nagu soo biir oo hel wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo dhan.